hay-adda Alpha Trust oo kamid ah hay'adaha samafalka ee Soomaaliya kana shaqeysa gargaarka iyo wax u qabashada carruurta Soomaaliyeed ayaa ku qabatay magaalada London kulan looga hadlayay waxqabadka hay-adda kaasoo ay ka qayb galeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London. Cabdirashiid Maxamed Nuur ayaa ka qayb galay warbixintan inoo diyaariyay. munaasabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli hay-adda Alpha Trust ee u dabaaldegayso sanad guuradii saddexaad markii la aasaasay 3 sano ka hor. xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay mas'uuliyiinta iyo waliba howlwadeenada Alpha Trust waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda. dadkii halkaasi ka hadlay ayaa cabiray fikirkooda ku aadan in Alpha Trust ay tahay hay'adaha farakutiriska ah oo muujiyay waxqabadka ay u taagan yihiin. waxaan jeclahay ciyaalaha yar Soomaaliya aan caawiyo. So let's tonight and from tonight on help Alpha Trust help the people. walaalkeen daahir cali kulmiye iyo foundation kiisa hibo waxaan leenahay hambalyo Allah kula garab garo. waxaan idinkaga mahad celinayaa garab istaagteen Alpha Trust oo aan dhihi karo waa wax la aamini karo lagu dayan karo lala shaqayn karo waayo meeshaan waxa aan ka daawanaynay in ka badan aan sugaysa. sidoo kale dadkii halkaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan oo ahaa asagoo wiil Soomaaliyeed oo qaba baahi gaar ah balse wuxuu muujiyay in dadka baahida gaarka ah qaba macnaheedu waa ahayna in waxba ay qabsan karin. I have a lot of respect for everyone who tried to help disabled people around the world. We all have a part to play. I believe that the biggest disability ever is a bad attitude. I want to share with you guys something. I believe 1000%. I don't believe I have disability. Never did and never will. aad iyo aad Alpha Trust iyo walaalka daahirna ugu mahad celinaya dhamaantiina waa mahadsantiin ilaahay ka jaasa mariyo. anigu intaan ka aqaano waxa weeye hay'ad u taagan badbaadinta iyo samata bixinta dadkeena danyarta ah ee Soomaaliyeed ee ku kala daadsan guud ahaan dalka Soomaaliya. waligay wadankayga hooyo ma tagin laakiin Alpha Trust waxay ugu dhalisay inaan wadankayga hooyo sanadkan soo arko. annaga haddaan nahay sportiska waxaan ballan qaadaynaa inaan qaybteena aan ka qaadano oo yacni sidii xoogga aan u saar lahayn yacni Alpha Trust saan caawinaadeeda waxay u galay. dadka Birmingham joogo Soomaalida markaan iri Alpha Trust ayaan lacag u yaboohaynaa kulligood waxay yiraahdeen welcome wayna dhiibeen. gudoomiyaha Alpha Trust daahir cali kulmiye ayaa wuxuu sheegay in hay'adda ay u taagan tahay gargaaridda bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto balse ay dardargeli doonaan dadaalkooda loo idmaday. baahida ka jirta dhulkii hooyo joogta magaalada Boorame aaba jooga gobolka Bari wiilka jooga gobolka Bakool gabadha joogta gobolka Banaadir yani wax ka xumaateen dhibka haysto yaa caaw halkan u timaadeen taas abaalkeeda ilaahay idinka abaal celiyo. sidaqada dad islaan ayaa noo dhiibtay waxaa waajib noogu ah anigoo ku hadlaya ururkayga qof islaan inay gaarayso meesha doonaa ka soo jeedo anaga ma nihin qof qabiil ku socdo qof siyaasad ku socdo ma nihin lacagta maxaa u aruurin qof islaan u aruurin ogaa meesha qofka islaamku ku dhibaataysay anaga inay gacanteena gaarto waa waajibna saar waa waajib hooyo walba saar maanta ilaa anaga wax noo dhiibay anagana wax u geeyna way dadka. okay waxaan u baahanahay caawa Alpha Trust waxaan rabnaa inaan tagno Soomaaliland sida ugu dhaqsaha badan warkiga rabaa inaan idinka leer galay sida ugu dhaqsaha badan walaalaheen in aan wax u qabano problemka ka jiro Boorame iyo meel walba inaan gacanta ka geysan wallahi we can do it easy waxa idinka noobti dhidan qaadaynaa waa u sameeynaa marka waxaan rabaa aad iyo aad inaan soo garab istaagtaan si diiran iyo islaamnimada ay ku dahantaa mar walba. waxaan ku soo xiraa horta mar walba University TV engineerka iyo groupkooda wallahi baa meedin sheegay yani qafasi wax u aragtaa engineerka maalinta u tagay waxaan weydiistay organizationka inaan furaayo nin la dhaho Cabdalla ii geeyay iyo group kale waxaan ka codsaday programka inaan ka shaqeeyo dhulkii hooyo aan ku howlgalo muxuu ila daahir waxaan dacad mikaayiinha I will do for charity ma daayihiin wallahi alazim caaw meeshaan aan kala galnaa 10 geli wiligood ma weydiin. si kastaba ahaatee xafladan ayaa ku soo gabagabooday jawi aad u wanaagsan ayadoona sanadkan 2016 halkiriga Alpha Trust oo noqon doono hibo
taasoo u taagan u gargaaridda bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada dhibaataysan waxaana mas'uuliyiinta Alpha Trust ay xaqiijiyeen in sanadkan gudihiisa ay gaari doonaan dalka hooyo gaar ahaan Somaliland Cabdirashiid Maxamed Cabdirashkiin Universal TV London